أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. فأكون بالقيم العظيمة جدولا، نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. لا تسأل المقدام عن سبل العلا، ستراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا.
وجلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة. magacaygu waa Mustafa Salmaan Axmed Xaaji waxaan ka nimi kuleejka magaalada Kalabayr waxaan nimi Celwacayseed oo maanta halka ku ciidnay aan waqti qaadano ku ciidnay baashalnay waxaana mahad iskale oo aan u mahadcelinayna dadka gudida oo meesha jooga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي واي سعيد عبد الله موسى waxaan ka mid ahay ardayda dhigata kuleejka iftiin ee Kalabayr waxaan ka soo dalxiis tagnay kuleejka iftiin ee Kalabayr waxaan nimaanay tuulada Celwacayseed waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka gudiga iyo shacabka ka dambeeyay inaan meesha nimaano iyo maamulayaasha kuleejka waan mahad celinayaa way mahadsantihiin dhammaantiin. السلام عليكم. magacaygu waa Axmed Jaamac Faarax waxaana ka mid ahay ardayda dhigata kuleejka iftiin ee Kalabayr maantana waxaan ku dalxiis tagnay tuulada Celwacayseed xaggaas aan ku ciidana maalintii labaad dhammaan gudiga kuleejka baan u mahad celinayaa. ciid mubaarak muslimiintu meel kasta ay joogaan kullu caam wa antum bil khayr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. magacaygu waa Bashiir Kaamil Maxamed waxaan ka mid ahay macallimiinta kuleejka Kalabayr maanta way tahay maalinkii labaad ee ciida ilaahay idamkiisa waxaan ka soo baxnay Kalabayr waxaan soo gaarnay deegaanka Celwacays halkaas aan soo dalxiis tagnay annaga iyo ardaydanadii iyo maamulkanagii iyo gudidii saraba marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh. magacaygu waa Maxamed Cabdulle waxaan ahay maamulaha iftiin kuleej Kalabayr kuleejka ku yaala Kalabayr iftiin iskuulka iftiin kuleej Kalabayr waa boarding ardaydu wax ka bartaan chiefkooda iyo cuntadooda iyo wax walba adeegooda ah oo asaasiga ah ay ka helayaan. ardaydu waxay wax ku bartaan manhajka Puntland iyo maadada Quraanka Kariimka ah oo tahfiid iyo tacliim ah labadaba ardaygu baranayana xifdinayo ahkaamtiisa iyo baranaya tajwiidkii runtiina oo ardaygu xifdinayo ilaa xad aad loogu dadaalo xiisado badan Quraanka la siiyay. ardaygu meeshaas halkaas ku xareysan yahay waqtigiisa ugu badan wuxuu qaadanayaa wax akhris iyo waxbarasho iyo duruus inta hurdo oo nasniinta leeyahay mayo inta kale ardaygu iyo maalmaha fasaxa mayo inta kale oo arday labadiisa gelinba wax dhiganaya. waxaan rajaynaynaa in arday badan oo tayo sare leh ka soo baxdo. maanta waxaan joognaa Celwacayseed annagoo ah xubno ka mid ah gudiga sare ee iskuulka iftiin college Kalabayr maamulkiisii ardaydii shaqaalihiisii dhammaantay halkaas aan ku dhannahay. alxamdulillaah ilaahay waa mahad leh na waafajiyay inaan halkan isugu nimaadno. intaa kadib iskuulka waxaa la furay Oktoobar 2021 heerka uu hadda marayo waxbarashada qaabkay ku baxdo iyo heerarka ay marayso waxaa ka warbixiyay maamulaha iskuulka ayaa ka warbixiyay marka taa waxba kaga noqon mayo iyo macallimiintii oo halkan ka hadashay kaliya waxa weeye waxaan leeyahay iskuulkan wuxuu ku socdaa jaaliyadaha banaanka iyo gudaha dacmigooda iyo hantidooda iyo gacanta ay siiyaan ayuu ku socdaa. meesha uu joogana maanta way arkayaan isaga oo waliba jiray waqti yar oo kooban oo hal sano iyo wax yar socday sanad dugsiyeedkii ugu horeeyay ayaa maaragtay hadda gabagaba natiijadiisana waa u jeedaan. waa u mahad celinaynaa dhammaan jaaliyadaha gacanta ka geystay in uu hirgalo iskuulkan uu socdo dalka gudihiisa kuwa jooga iyo
dibadaha jaaliyadaha jooga waxaan leenahay walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idiin saaro gacantii aad ka geysateen waxaan filayaa inaydan ku hungoobi doonin oo aydan ku khasaari doonin maalgashigii aad dadkan maalgashateen waxaan rajaynayaa in aad laban laabtaan dadaalkiina qolada awal bixin jirtay qolyaha kale oo na daawanaya oo ay khusayso deegaanka Kalabayr iyo dhammaan qof kasta oo ku darsanaya inuu kaga qayb qaato sidii jiilkan uu noqon lahaa jiil mustaqbalka dadka iyo dalka anfaca qof kasta oo arintaas ay damqayso waxaan rabnaa inuu ka qayb qaato inuu ku soo dhawaado iskuulka Iftiin College Kalabayr waa iskuul u furan Puntland mujtamac ku nool waa iskuul u furan Soomaaliya mujtamac ku nool waxaan rajaynaynaa insha Allah taala muuqaalka ku xiga annagoo inta ka badan ka qurux badan meelahan oo kale iyo meel kale joogna ka qurux badan insha Allah taala inaan isku noqon doono waxaan u mahad celinayaa macallimiinta iskuulka oo runtii aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan oo ay gacanta ugu hayaan juhdiga iyo dadaalka u gelinayaan maamulka iskuulka aan u mahad celinayaa xubnaha kale oo boorka oo hadda qaybiilo joogto qaybina iga maqan tahay waa u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa maamulka iskoolka iyo macallimiinta meesha soo gaarsiiyay quruxda badan waxaan kale u mahad celinayaa jaaliyadaha dalka iyo dibaddaba wadada kan ku soo tabcay oo maanta heerka soo gaarsiiyay waqti kooban oo sida quruxda badan ay wax barteen ama ay qurux badan yihiin ay arkaan ay arki doonaan waxaan rajaynayaa meesha ay gaarsiiyeen meel ka sii sarreeyay inay gaarsiiyaan waxaan ilaahay uga baryayaa miisaanka xasanaadka inuu ugu bedelo caruurtaas waxbarashada iyo noloshooda ay kafaalo qaadeen oo ay u qumeen waxaan kale u mahad celinayaa cid kasta oo naga taageeray caruurtan noloshooda iyo waxbarashadooda sida culamaa diinka hay'adaha islaamiga ah iyo kuwa kaleba waxaan marka fariin u dirayaa meeshaas aynu maanta keenay waxaan rabnaa in ka sii amba qaadno oo intan aynu ka sii badino dadka aynu wax barayno cidda aad annaga meel hawsha aad wakiilka nooga dhigateen waa taas waad aragtaan waana u taagannahay oo caruurta waan barbar taagannahay inkana waxaynu rajaynaynaa inaad kordhisaan dadaalka aad wadaan waad kordhisina si laba laabtaan waxaan fariin u dirayaa wasaaradda waxbarashada ee Puntland inay gacan naga siiso waxbarashada iskoolka iyo nolosha caruurta aan meesha ku hayno waxaan kaloo fariin u dirayaa bulshada ku nool Puntland inay cidii danaynaysa ama wax la baxaysa ama jecel inay citaa kuleyso in looga baahan yahay caruurta meesha lagu hayo waxbarashadooda if iyo aakhiraba way ku liibaanayaan waxaan dhawaaq dheer u dirayaa cid kasta oo muslimiina oo danaynaysa waxbarashada caruurta inay ka qayb qaataan waxaan rajaynayaa ciday aan la hadalay oo dhan inay codkaygu u gaaro inay aqbali doonaan waxaan weydiinayno waxaan mar labaad u mahad celinayaa dadkii ku tabcay dadakan oo ku soo tabcay oo halkaas soo gaarsiiyay mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.